daawadahayga weligaa ma maqashay dad jiifeen 309 sano laga yaabaa inaad isleedahay macquul ma ahan balse way dhacday waxaan kula wadaagi doonaa qisada dhalinyaradii godka ee loo yaqaan asxaabul kahfi sheekada asxaabul kahfi waa mid mucjiso ah oo quraanka kaga sugan suurada al-kahfi aayadda 9 ilaa aayadda 26 haddaba halkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa sheekadaas oo faahfaahsan xaaladda magaaladooda iyo diintooda waa sheeko ka dhacday magaalada diinta alle ka tagtay dadka magaaladaasi waxay caabudi jireen sanamiyo waxaa ku jiray dhalinyaro kuwaas oo alla geliyey qalbigooda diinta islaamka xoojiyeyna iimaankooda waxaa la yidhi waxay ahaayeen 7 wiil sida qaar ka mid ah tafaasiirta inkastoo tiradooda si cad quraanka aan loogu sheegin diidmada shirkiga iyo go'aankoodii adkaa markii lagu qasbay inay sanamiyo caabudaan dhalinyaradaasi waxay si geesinimo leh u yiraahdeen eebaheenu waa eebe kaliya wax alla ka sakow uma yeerayno waxay go'aansadeen inay magaalada ka baxaan oo galaan god buur ku yaala halkaas oo ay alla ku baryeen eebowna sii naxariis xaggaaga ah oo noo hagaaji arrinkeena hurdo mucjiso ah 300 oo sannadood markay galeen godka alla wuxuu ku riday hurdo qoto dheer oo socotay 309 sano quraanka wuxuu sheegay waxaad u malaynaysaa inay toosan yihiin laakiin way hurdaan waxaan u rognaa dhankooda midig iyo bidix xayawaan yar oo ay ah ayaa hortooda hurday ilaahay si gaar ah ayuu quraanka ugu xusay eygaas eygoodana wuxuu lugaha la dhuuntay afaafka godka markay kaceen la yaabka iyo isbeddelka waqtiga markii alla damcay inuu mucjiso ka dhigo waxay ka kaceen hurdadoodii ayagoo moodaya inay maalin ama saacad ka mid ah ay saxdeen midkood ayaa loo diray si uu u keeno cunno markuu tagay magaalada wuxuu arkay dad cusub dhaqan cusub lacagtiisii lama aqoonsan wax waliba way isbeddeleen dadkii magaalada waxay la yaabeen wiilkan wuxuu isticmaalayaa lacag duug ah wuxuuna sheegay magaca horey loo ilaabay sheekadoodii ayaa dadkii u caddaatay waxaana la ogaaday mucjiso oo Allah tusay bini'aadamka dhammaadka sheekada dhalinyarada iyo xikmadda Alle kadib markay dadku ogaadeen mucjisada dhalinyaradaasi waxay ahayd in sheekadooda laga dhigo xusuus iyo cibro qaarna waxay yiraahdeen aan godkooda masaajid ugu dhisno taasina waxay noqonaysaa calaamad lagu garanayo cibrooyin laga baranayo qisadan kow iimaanka dhalinyarada da'da yar ee alla rumaystay una sabray dulmiga 2 ka fogaanshaha fitnada waxaa laga yaabaa inaad ka cararto bulsho haddii ay sameeyaan wax uu alla reebay 3 alla awoodiisa 309 sano hurdo waa mucjiso aan cilmi iyo caqli mooye loo faalin karin 4 mudnaanta iimaanka ka hor nolosha way saxdeen way dhinteen wax walibana way dhamaadeen laakiin Allah ayaa badbaadiyay iimaankooda 5 aaminaada Alle markuu Allah arinku hagaajinayo wax waliba wuu ku sahli karaa xitaa adigoon ogeyn halkan waxaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeeni maanta haddii aad nagu cusub tahay fadlan saaxiib nagu soo biir fadlan walaysa amran maca salaam